dadyowga qaarkood waxay samaynayaan sixirka ay qorayaan waxay isticmaalayaan aayado qur'aana maalan waxayna ku isticmaalayaan ashyaa oo nijaas ah ashyaa oo nijaasa maalan dhiig buu soo qaadayaa ama xaydkii dumarkuu soo qaadayaa ama najaaso kaliya kaadibuu soo qaadayaa wuxuu tawaadiya qalin uga dhiganayaa aayadihii qur-aankuu ku qoraya markuu ijraamka noocaasoo kale galo waana wax lagula heshiiyey inuu sidaa sameeyo qaabkanuu markaa u dalbanayo maxaanku idhahaa istikhdaamka shayaadiinta marka hore waxaa loo maraa cilmi aynu wax ka tilmaami doono oo la yidhaahdo riyaadiyaat riyaadiyaat haddaad maqasho waxaa looga jeedaa qofka doonaya inuu shayaadiinta la itisaalo la xidhiidho oo bahwadaag la noqdo waxaa loo sheegayaa kelimaad baa la siinayaa lo odhanayaa ku celceli kelimaadkaas macnahooda ma garanayo ruuxani waxaana la odhanayaa waa inaad khalwo gasho khalwadu waxa weeye waa inaad khalaa'iqda ka dhex baxdo oo meel cidla ah aad tagto marka derajada khalwada ayaa kala derajo sarraysa haddaad doonayso shayaadiinta annayda ah inaad la xidhiidho 7 cishaa lagu siinayaa 7 cishaa lagu leeyahay ka dhexbax makhluuqaadka guri madow isku soo xidh timir iyo biyo uun isticmaal kelimaadka caynkaasana ku celceli hana seexanin ilaa ay kaa xoog badanayso hurdadu hana seexanin waxaasuun aqri haye markaad sheekadaa wado kelimaadkaa aad aqrido leyla nahaar oo aad oon xoolaadna ka fogaato markaa meesha aad fadhido humaag baa kuu iman doonaa ama waxaa kuu iman doona wax sidaa iyo sidaa u eg mas madow oo xoog badan baa kuu muuqan doona ama libaax miciyo waaweyn baa kuu muuqan doona ama cifriid xoog weyn baa kuu muuqan doona ama cirsanka yeedh baa kula hadli doona markaad meeshaa madow eed fadhido aad ku aragto makhluuqaadka ah ha cabsanin dalabkaagii baa la aqbalay waxaa kuu yimid shuruud buu kala geli doonaa wuxuu ku odhan doonaa markaad ii baahato adeegso shaygaa iyo shayga mar allaaliya markaad sidaa iyo sidaa yeesho waan kula joogaa waxaad iga codsata baan kula qabanayaa haddii aad 7 cisho sidaa ku jirto oo dabadeedna shuruuddaa lagula galo haddii aad shuruuddaa ka baxdo waad ku qasban tahay baabka riyaadiyaadku albaab laga galuu leeyahay lagama bixi karo ma fahamteen baabka riyaadiyaadku albaab laga galo weeye laakiin mar haddii waxaasi isu kaa muujiyaan kama bixi kartid waxa uu kugula ballamay haddaad diidana malagaagaa galay way ku dilayaan hal masalo oo mithaal ah baan idin siinayaa hargeysadan nin odaya waxba magaciisa waxa la magacyada sheegin baa laygu yidhi nin odaya ayaa baabkaa galay miyigaasuu iska aaday isagu laakiin wuxuu qaatay riyaadiyaadka 40 cisho ah 40 yowman qaar waa 7 ayaam qaar waa 40 yowman qaar waa 4 bilood qaar waxa weeye sanad isagu wuxuu qaatay 40 yowman meel miya oo sanqadla ayuu intuu salool yar iyo timir iyo biyo qaatay ayuu tegey markuu marayo dhowr iyo 30 maalmood ayaa reer miyi ah oo agtiisa deganaa ayaa neef shiraystay neef bay qasheen siniintii hilibka ayaa soo gaadhay ninkuna nin aad iyo aad hilibka u jecel ayuu ahaa saruurad baa qabatay
deedna go-aan buu qaato wuxuu yidhi aad dib u soo bilowdide igama gubato igama qudhinto iska dheh reerkii buu u tegey wixii ay karsadeen buu la cunay hilibkii buu la mushuuqay halkiisibu isaga soo noqdo wuxuu rabaa 40 kale inuu kow ka yidhaahdo ila way burtay salaadii hore dabadeedna gabalkii markuu dhacay ayaa loo yimi dhowr iyo 30 maalmoodna uu mariye garo markaasina waryaahe haddii aad nala ballantood barnaamij iyo wacd cibaado ku jirtay maxaad u bari furtay markaasuu yidhi waan saruuradoodayo naftii baan xajin kari waayayo waxaan rabaa 40 kaleda inaan sameeyo markaasina kaa socon mayso faash bay soo qaadeen fartaa iyo suulkaasay gooyeen farwalaa la odhan jiray fartaa iyo suulkaa ayay gooyeen oo yidhi abaalkaaga waxaan ka dhigaynaa imikana bilow 40 kale 40kii kale markuu dhammaystay ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu abaalkaaga dhigaynaa qabiilka iyagu cidda ay galaan ama qabaa'ilka aanu ka xoog badannahay cidda ay galaan haddii laguu keeno inaanu markiiba ka yacno dabadeedna ajuuradaada iyo waxartaada lagu siiyo ood sidaa ku noolaata haddii laakiin qabiil naga xoog weyn ay ninkaa ku jiraan ama ruuxaa ku jiraan annaga ha nagu hallaynin marka riyaadiyaadkan laguu sheegayo waxaa lagula xidhiidhaya qabaa'il jin ah qabaa'ilkaasaa lala shaqaysanayaa waxaan markaa uga socdaa waa baab ii soo socdoon ka sheekayn doono marka riyaadiyaadku kuu dhammaadaan ee waxaan argagaxa lihi uu iskaa tuso shuruud buu kula xidhanayaa shuruudaha waxaa ka mid noqon karaa adiga oo bilaa weysaa waa inaad tukataa ama adigoo janaabaysan waa inaad tukataa ama waa inaad kitaabka qur-aanka ah suuliga aada la gashaayood isku dul taagtaa ama xaashiyaha qur-aanka intaad googoyso waa inaad lugahaaga ku xidhaa oo meel najaaso leh waa inaad dhigtaa ama markaad noo baahan tahay inaad bannaanadaa u baxdo meelaha gudaafaduhu yaallaan waa inaad sida dameeraha ku galgalataa waxyaalo noocaas oo kale ah haddii aynaan ka sheekayn karayn qaarkood ayaa horta lagula xidhiidhayaa shardi looga dhigayaa mar allaaliya markuu nijaasada ama kitaabka qur-aanka ihaanaysto ama aayadaha qur-aanka yani nijaastaa ku qoro ayaa jinkii u imanayaa wuxuu ku odhay maxaad nooga baahan tahay waxay odhanaya waxaan idinka baahanahay hebel baa ii yimi waxaanu iga rabaa in gabadha heblo la yidhaahdo aada u soo wajaaftaan gabadha heblo la yidhaahdo inaad u soo qaadaanoo qalbigeeda aada laabqaadaan oo jeclaysiisaan sidaasay markaa magacii ku qaadanayaan gabadha waxaana ugu daran oo qaabkaa isticmaala koonfurtaasaa aada looga isticmaalaa koonfurta qolada isticmaasha waa qolo xariifiin ahoo fogaaday waa qolada yaxaaska dalbata wey yaxaaska kuwa isticmaalo wey yaxaasku sidaan hore idinku warramay shaydaanka jinku wuu tashakulaa qaabab nooca buu isu sameeyaa wuxuu iska dhigi karaa waraabe wuxuu iska dhigi karaa ay wuxuu iska dhigi karaa bisad wuxuu iska dhigi karaa mas wuu muuna dooriyaa jidhkiisa wuxuu samaynayaa saaxirkan webiga joogaa gabadhii laga rabay ayuu 2 jin u kala dirayaa mid wuxuu odhanayaa qalbigeeda waxaad u soo eridaa xagga webiga midna wuxuu odhanayaa yaxaas iska soo dhig labadii shaydaanna waxay ku ballamayaan meel heblaan keeni doonaaye adiguna meel heblo ku sugoo qaad jinkii la soo diray gabadhii wuxuu ku furayaa kulayl alla waan gubanayaa webigaan soo gelaya webigaan kusoo qabowsanaya webiga unba inantii lagaba kari maayo webiga xagga webiga ay u cararaysaa markay webiga jiinkiisa timaado waxaa sugaya bahal yaxaas oo intee leeg yaxaaskii intuu qaaduu dhabarka u ridanayaa webigii buu la dhex dabaalanayaa qaadanayaa
waxanaad moodaysa inuu yaxaas yahay waa shaydaan isu soo suureeyey yaxaas markaasaa la odhanayaa ninka hebel yaxaasku amraa yaxaasku haddii alla yidhaha yaxaas oo dhan baa ka dambeeya cilmiguna sidaa maaha ee waa jin soo tashakulay oo yaxaas iska dhigaya marka qaababkaasaa loo wada shaqaysanayaa waxa loo shaqaysanayaana waxa weeye in lay ahaanaysto ilaahay diintiisa oo ilaahayna wuu inooga warramay kitaabkaa aynu arkayno ee qur'aanka ah ee munasalka ah baa ilaahay wuxuu tilmaamay yudilu bihi man yashaau wayahdi bihi man yashaa kitaabkaasaa dadka qaarkoodna hidaaye ee hanuun ilaahay u gelinaya allah inoo geliye qaarna baadi iyo dalaal bay ka kasbanayaan waa kuwa dee nijaasta ku qoraya aayadaha ilaahay u galay markaa sixirku yaanan hadal kugu daalinine hadduu yahay mid loo isticmaalay wax ilaahay diintiisa lagu ihaanaysanayo laguma kala baydhin sixirka nooca ee la adeegsanaya inuu kufri yahay